kadib markay aragtay marxaladan xasaasiga ee dalkeena Soomaaliya uu marayo kadib markay aragtay sida ay dalal ka mid ah dariska ay u doonayaan inay Soomaaliya uga faa'iideystaan burburka soo wajahay dalka muddadii 28 sano kadib markay aragtay qiimaysayna baahida loo qabo difaaca dalka iyo mideynta ummadda Soomaaliyeed waxay xarunta television Soomaaliyeed ugu baaqaysaa in ummadda Soomaaliyeed gudaha iyo dibadda muxaafid iyo mucaarad ay u istaagaan difaaca dalka meelna iska dhigaan khilaafaadka yaryar ee dhexdooda isla markaana loo wada istaago mideynta dadka Soomaaliyeed labo in beesha caalamka sida qaramada midoobay gaar ahaan golaha ammaanka midowga Afrika jaamacadda Carabta IGAD ay mas'uuliyad weyn ka saaran tahay ilaalinta iyo dhowrista midnimada dhuleed iyo badeed ee Soomaaliya midowga Afrika waxaan u soo jeedinaynaa inay ilaaliso heshiiskii ay dalalka Afrikaanka ku gaareen magaalada Addis Ababa sanadkii 1963 oo ahaa in la bedeli karin xuduudda gumaysiga uu dhigay dawladihii xorriyadda qaad waxaan u soo jeedinaynaa oo ku adkeynaynaa dawladda Soomaaliyeed ee hadda jirta inay meel mariso go'aankii golaha shacbiga ee 8aad ee sanadkii 2009 oo cod aqlabiyad leh ku go'aamiyay in inta dalka Soomaaliya ay ka dhalanayso dawlad ay dadweynuhu soo doortaan inaan wax gorgortan ah laga gali karin xuduudaha Soomaaliya bad dhul iyo cir waxaan kaloo soo jeedinaynaa in qareenadii galay dacwadii badda ee ku metelaya magaca Soomaaliyeed wajigeedii koowaad inay dhameystiraan dacwadda wajigeeda labaad isla markaana gacan lagu siiyo gudashada xilkooda ugu dambeyntii xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed waxay shacbiga Soomaaliyeed meel kasto ay dunida ka joogaan gudaha iyo dibaddaba ay ugu baaqaysaa inay u istaagaan oo ay muujiyaan dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan boobka ay dawladda Kenya ku doonayso inay badda Soomaaliya ay kula wareegto